maareeyaha injineerada bahda saxaafadda dhalinyarada halkan ku sugan gidigiiba waan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta ugu horeyn waxaan bogaadinayaa maareeyaha iyo wakaaladda shaqaalaheeda guud ahaanba horumarka weyn ay ka sameeyeen dhinaca biyo soo saarka muddo kooban. waxaan kaloo kan uga mahad celinayaa cid kasta oo inaga caawisay oo gacan ka geysatay kor u qaadidda soo saaridda biyaha. halkaa markaan ka gudbo, biyuhu waa nolosha. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi wax waloo noolaaba waxaan ka sameeyey biyo. biyuhu midda kale waa labada halbowle ee waraabiya horumarka, biyaha iyo tamarta. labadaasaa waraabiya horumarka. sababaha aynan ilaa iminka ula jaan qaadin oo ula qabsan waddamada horumaray waxa weeye labadaasaad mooddaa cidhiidhi inay nagu yihiin. laakiin ilaahay subxaanahu watacaala labada way nagu manaystay. inkastoo roobku aanu inoogu badnayn sida waddamada qaar, haddana biyo badan baynu haysanaa. waxaa ka mid a biyaha badda ayaa ka mid a. waddamo fara badan ayaan biyo kaleba helin kuwaa badda mooyaane, ka faa'iidaystaan mooyaane. waxaa kaloo sanadkii aynu helaa marka la isku celceliyo ilaa 300 milimitir oo rooba aynu helaa. haddaad baaxadda dalkeenna ku dhifato oo ah 176,000 ilaa 50 bilyan oo mitir kiyuub oo biyaabaa sanadkeenu samada ka helaa. biyanaguma yaraa, waa maamulka. ida laftigeenna biyaha dhulka hoostiisa ku jira inaguma yaraa. imka dadkeenna haddaad ka soo qaado 50% inay ku nool yihiin magaalo, ilaa 2 milyan hadday ku nool yihiin. haddii 10 litir qofkiiba isticmaalo isu geyn waa 20 milyan oo litir maalintii baynu isticmaalnaa. 20 milyan litir waxay ka yimaadaan dhulka hoostiisa, dhulka dushiisa kama yimaadaan. marka biyihii waynu haynaa. mashkiladii waxa si aynu u maarayn lahayn, aynu ugu weel samaysan lahayn weeye. waxaa jira waddamo fara badan oo biyo helitaankoodu inaga yar yahay, laakiin haddana maxaa teknolojiyada isticmaalan aawadood iyaguna ka haqabla, dadka kalena ka haqabtira. marka biyo malihin waxaynu u baahannahay biyihii inaynu qabsanno, ka faa'iidaysano biyaha faraha badan leh. tamarta lafteeda sidaasoo kale ilaahay subxana watacaala way nagu manaystay. marka laga yimaado shidaalkan dhuxusha amba kan bitroolka, waxaa laga dhaliyaa korontada waa cadceed iyo dabayl. cadceed iyo dabaylla waynu haysanaa. waxayna waddamada ugu dabaysha badan Afrika oo dhan, caalamka oo dhan badan karta runtii waynaan ka faa'iidaysan. haddaba intaynu gaadhayno inaynu ka faa'iidaysano biyaheenna iyo tamarteennaba, waxaynu u baahannahay inaynu tashiilo waxaynu haysanno. waajibkeennu soo saarun maaha, tashiilo weynu ku jiro. dadku waxay u baahan yihin wacyigelin badan in la siiyo si biyaha loo tashiili lahaa, dee loo isticmaali lahaa si wanaagsan. imka waddamo fara badan baa waxay isticmaalaan xagga biyaha beeraha, waxaa la yidhaha drip irrigation baa la isticmaalaa. xitaa musqulaha waxaa la isticmaalaa kuwo biyaha la isticmaalaya aad u yar yihiin. imka toiletka caadiga markaad falash garayso amba marka biyaha kasii dayso waa ilaa 10 litir, ilaa 10 litir baa kaa soconaya. laakiin waxaa la heli karaa kuwa 5 litir isticmaalaya oo kale. marka in dadka ku wacyigelinno si hababka ay u tashiili karaan biyaha ayaa runtii aad iyo aad loogu baahan yahay. waxaa kaloo noo baahannahay biyaha inaynu mar iyo 2 iyo 3 ba isticmaali karno. caalamka oo dhan biyaha laga isticmaalo meheradaha iyo guryahaba waa la qabtaa, waa la nadiifiyaa, waa la soo celiyaa. xitaa haddaan cabitaan loo soo celinaynin dee waraab baa lagu soo celiyaa. waxaynu u baahannahay biyaha laftigooda inaynan markii qasabadun furune aynu ka faa'iidaysano. waxaa kaloo noo baahannahay runtii shuruuc qoranaysa dhismayaasha oo dhan in lagu khasbo inay bir ka samaystaan si ay u qabsadaan biyaha mijaroorka marka xilliga roobka. marka dhinacaas waa dhinacii isticmaalka, soo saaridun maaha. waxaynu u baahan dhinaca isticmaalka laftigiisa in wax ka qabano, wacyigelinno dadka. waxaa kaloo aynu u baahannahay inaynu tababaro oo soo saaro injineeradii arrinkaa inagala hawlgeli lahaa. waxaynu u baahannahay macaahid iyo dhibaarmano iyo faculties ku takhasusa biyaha baynu u baahannahay, si biyaha loo soo saari lahaa, sidii loo tashiili lahaa, sidii loo nadiifin lahaa, sida caalamka intiisa kale. maadaama biyuhu ay cidhiidhi inagu yihiin, inkastoo xagga ilaahay subxaana watacaala inaan cidhiidhi ka gelin, laakiin farsamadeenna halkaa ayna dhigtay. waxaynu u baahan farsamo yaqaankii baynu u baahannahay
marka waxaan u baahnay macaahid in la sameeyo ku takhasusta waxaan rajeynaya wakaaladda laftigeeda inay arrinkaa ka hawlgasho oo ugu yaraanba horta ku tababartaba shaqaalaheedii inay samayso macad lagu barto hydrology-ga amba soo saaridda biyaha haddii intaa la helo oo shicib iyo dowlad baynu isugu tagno sidii loo soo saaray si loo tashiin lahaaba waynu ka baxaynaa cidhiidhka biyaha inaga haysta maanta aad baa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu